xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga talada Soomaaliland hayay kulmiye oo safar shaqo ku jooga magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa uu safar ka ogaanay ujeedadiisu ahayd u kuurgalka xaaladda kala duwan ee gobolka Togdheer sida caafimaadka, amniga, waxbarashada, biyaha iyo waliba horumarka. wafdiga ayaa waxa ay maanta kulan la qaateen madaxda gobolka Togdheer iyo waliba madax dhaqameedka. kulanadan ayaa waxay ahaayeen kuwa albaabada u xidhnaayeen bahda warbaahintuna dibadda ka ahayd. wafdigan ayaa waxa ay ka kooban yihiin wasiirada wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf, wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Yuusuf Maxamed Cabdi, wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Salmaan Yuusuf Cali Koore, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Axmed Cabdi Dheere. waxaana wafdigani kormeerkooda ay ka bilaabeen cisbitaalka guud ee magaalada Burco, halkaasi oo ay u kurgaleen xaaladda guud ee cisbitaalkaasi hadda ku sugan yahay, iyagoo maamulka cisbitaalku uga warbixiyay wafdigani xaaladda cisbitaalkan iyo sidoo uu shaqeeyo. intaasi kadibna waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi, wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf, wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi. runtii wafdigu waxayna soo gaadheen xalay safarkooda oo maaragtay ujeedadiisu ay ahayd inay u kuurgalaan xaaladda gobolka Togdheer, nabadgelyada, waxbarashada, caafimaadka, biyaha, horumarka. in qalabkii berigii dhowtoowi ka hor aanu keenay cisbitaalka inaanu eegno in qalabkii laga shaqaysiiyay in kale in ummadda qalabkii loogu talagalay in lagu adeego inuu shaqaynayo in kale. maalintii hore balaa qaarkiin waa joogteen, ballan baanu la galay inaan alaabta makhaasiin iyo gurya la dhigin in lagu shaqeeyo, ummadda loogu shaqeeyo. sidaa arkaysa waxaanu soo marray qalabkii qaar ka mid ah kuwii ugu muhiimsanaa oo aynu ku soo aragnay qaybta bukaan socodka iyo qaybta umulaha. waxaa kaloo jirta qaybtan muxuu ahaa qaybo badan oo kale oo dadka lagu eego oo ay yaalaan qalabkii qaar. waxaa ilaahay mahadiya in ballankii cisbitaalku qaaday uu ka soo baxay. ballankii annagu aanu ummadda u qaadnay, dawladda uu ka madax yahay Muuse Biixi Cabdi, qalabkii aanu keenay in sidii loogu talagalay loogu shaqaynayo. wasaaradda horumarinta maaliyadda shaqadeedu waxay ka muuqataa shaqooyinka kale ee hayaan wasaaradaha kale iyo hay'adaha qaranka ee kala duwan, sida wasaaradda caafimaadka iyo biyaha iyo waxbarashada. insha Allah bidmillaahi kariim sanadka dambe waxaan furi doonaa iskuulkii farsamada gacanta ee halkan baan furi doonaa. wasiirkii waxbarashada iman doona, heshiis ayuu la galay, annagana miisaaniyadda intii nagaga aadinay waa bixinay. iminkana beerihii xaaxi waa annagii siidhkii ku soo shubnay. insha Allah bidmillaahi kariim beerna waan ku shubi doonaa. biyaha gobolka guud ahaan si toos ah in wax looga qabto, isagoo ah gobolka ugu fiican marka biyaha la eegayo iyo guud ahaan Soomaalilandba. waxa ballan oo ah in horumarka ka wada shaqeyno, wadajirka ka wada shaqeyno, isu keenka dadka ka wada shaqeyno, wanaag iyo samaa hormood ka noqono. sidoo kale waxa ay wafdigani kormeer ay ku tageen xarunta wakaaladda biyaha magaalada Burco, waxaana halkaasi uga warbixiyay wafdigani sida ay u shaqeyso wakaaladda magaalada Burco. maamulka wakaaladaasi $266,000 baan la wareegnay maalintii wakaaladdu ay ku jirtay ilaa $170,000 waanu bixinay. wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Salmaan Yuusuf Cali Koore ayaa waxa uu shaqaalaha wakaaladda biyaha magaalada Burco uga mahadceliyay shaqada ay hayaan. nimankan inaan waqti aan ku ogaado waynu siinay, laakiin waxaan u arkaa niman runtii shaqadii looga baahnaa qabtay oo ku habboon inay shaqada qaranka u sii wadaan oo hayaan. aad iyo aad baan runtii ugu ducaynayaa iyaga iyo maamulkoodaba. wakaalad ahaan waxayna u muuqdaan inay hore u socdaan. mar hadduu hore socod jirana waxa weeye waa guul. Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen, Universal TV, magaalada Burco.